Soomaalida kaliya maahan haddii xataa dad Latin America ka yimaaday aad rabto inaad wacyigeliso oo marka hore dadka inaad fahamto siday u dhaqmaan caqiidadooda diintooda xadaaradooda waxyaabaha iyaga ay fahmi karaan ilaahay u naxariistay injineer Yariso dhintay hawshii ma sii socoto xaggaasi ka fadhida xiriirkii waa fadhiistay marka uu dhintay gobolka waxyaabo badan oo ku mashquulsan yahay ma aqaan sida u shaqeeyaan faylalka ma la isku dhiibaa ma la fiiriyaa faylalshii hore laga soo shaqeeyay hawshan la sii wada ma loo baahan yahay dadka ma loola xiriiraa si u shaqeeyaan ana markay in la soo ogeyn ururka waa sahlan yahay Swiiska in la sameeyo ujeedada laga leeyahay wax kala maahan waxa la yiraahdaa hobbiga dadka ay leeyihiin ururka wuxuu noqon karaa saddex qofood oo baashan boojada aan dhahno ama ururka boojada lagu ciyaaro ciyaartii katim arkino dhahan urur waxaan suubsanaynaa katimka horumarinaya lacagta aruurinayso caanka wadanka laga yaqaano xiriir ku lahaysay in arinta Soomaaliya dhankeedana maaragtay sida ahaataba meesha la marsiiyaba inay Soomaaliya qaybteeda budgetka qayb Soomaaliya inay wax ka hesho lacagihii loo aruurinayo aan wax lagu aruursan marka hore waxay yiraahdeen idinka ay la shaqeynayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيه برنامجكي بوقشة بانا عيمون إيه أتكلا سعوتان ورباهين تديغان عودكا جيسكا داوضياشا كنت حان برنامج كيغا مانتا وحان بوقشة كو جوغا مقالة هيك ودنكا نيدرلاندس هالكاسي او آنكو سو بوغدي rugcada muddo dheer ku soo dhex jiray arrimaha ururada rayidka ah waa ururada bulshada ee wadanka Switzerland oo aan ka wareysan doono arrimo dhowr ah oo ku saabsan taariikhdiisii iyo habka ay u shaqeeyaan ururada bulshada ee wadanka Switzerland si aan dhammaantayadaba wax uga kororsano haddaba aan ku soo dhaweyno oo ila soo dhaweeya waa يحيى طالب أحمد يحيى كسو دو ورباهين تديغان عدك جيسك إيا برنامجك بوقشة بان عيمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا عبد الفتاح إيو بحثة ديغان جيسك إيو داودياشا كوضا حيران ديغان وكما هتسنتين بوقشة إنو وتمادين معركتي أما كلهم كانوا كلوني دنهاك إيه هولان يحيى aad iyo aad ugu mahadsan tahay sidoo kale inaad naga ogolaatay in aan barnaamijkan aan u sameeyno daawadayaasha ku taxan warbaahinta deegaan iyo barnaamijka booqashada baan caymoon ugu horeyn goormaad bilowday maxaase kugu dhaliyay dareenka iyo xiisaha ururada bulshada iyo ka mid noqoshadooda iyo ka dhex muuqashadoodaba عبد الفتاح مركه ولا وحنها خوف ترجمانا دانك الترجمان كان كسو قال مركه هره iyadoo laga dalban jiray inaan meelaha ay ururadaas maaragtay bulshada maaragtay ay waxyaabo ku soo bandhigi jireen ama tababar ay kaga bixin jireen marba barnaamijka ay wadaan yaan dadka Soomaaliyeed u turjumi jiray ururo waaweyn iyo hay'adaha u turjumi jirtay aad okay oo مثلا ay kamid tahay Red Cross-iga lan khayr asha khaybo oo kala duwan ay kala leedahay qaybta waxbarashada iyo qaybta dadka xanuunsan dhimarka oo kale iyo waxyaabaha ay koorsooyinahan u bixin jireen arrimahaas marka hore aad ku dadaali jiray sidoo kale Caritas-ka iyagana waa u turjumi jiray برنامجنا كريتاس وأورور كله وسويسرلاند كجرا سويسرلاند كجرا إلا يهولندان نجعل هاي جرمكو كجرا وويها وسجنا وأورور يوروبا عنك كريتاس إنترناشنال أجرو لوكال كان سويس كان مركا ولو كان قبل كيان هاد كل شيء ينجري أورور كلا أجرو سيدا NCBI وكلا سي واحد بدن أنك قبرتي وأورور أي دد بدن سودستين أورور كانوا حكفرين هي سويس كا ururkaas wuxuu kale oo ka furan yahay wadamada sida Canada, Mareykanka iyo wadamo qaarkood oo East European ah sida ayaan ku soo galay waxa dhacday marka kulmaan mar walba aan turjumi jiray yaan waxa arkay duleelo oo aan ku habooneyn hab dhaqankeena Soomaaliyeed sida qofka wax loo fahamsiyo waxaan markay istusay inaan ku habooneyn mar walba inaan taagnaano qaybta turjumaanka oo kale marka ku bilaabay inaan weydiiyo in projectyalka qaarkood aniga tababar ay siiyaan si anigana dadkayga afkayga aan
ugu gudbiyo. Qaarna way ogolaadeen taban, qaarna way diideen. Kuwana waxay yiraahdeen koorsooyin yaa jiro haddaad soo qaadato waan samayn karnaa arrinta, marka laakiin koorsooyinka anaga kuma siin karno. يعني انت shaqadaada ku jirtay ayaa waxa kugu dhashay xiisaha inaad fahamtid habka ururada u shaqeeyaan iyo barnaamijyadii mashaariicdii ay fulinayeen ayaa waxaad ku aragtay aad tiri dolaylo ama faraaq aad isleedahay Soomaalida kuma haboona ee waa in la buuxiyo masaas aad iyo aad مثلا هذه الدولة كوسيو هذه دت كلاوجه هذلايو هب دخميدا جرو دخن كينا يدين تينا وكله أما فهم كسيديس لخد دت كحير هذا وهالترجمة كواد ودي بدينه محيالي كلمة دو حجرو أما sentence أنا كهبونن لخدينا أورور كوا إن تفهم سيسو إن تستعمله ساف كجرو كحير هذا سنكميس معناها تقريبا أفكار وحير هذا نوكله سيدا سكر جبابنا نجا معناها waxaan u fahmay marka in fariinta ama wacyi gelinta loo sameeyay dadka Soomaalida habka fariinta loogu dirayay iyo sida loo wacyi gelinayay ma ahayn hab dhaqanka iyo yani diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed aan waafaqsanayn ama aan Soomaalida yani u deegaamaysnayn aan dhihi karnaa wala dhihi karaa Soomaalida kaliya maahan haddii xataa dad Latin America ka yimaaday aad rabto inaad wacyi geliso oo marka hore dadka inaad fahamto sida u dhaqmaan aqoonsidooda diintooda xadaaradooda waxyaabaha iyaga ay fahmi karaan iyo hadda koran nin aad macallin ah oo Jarmal mar meel ka wada shaqeynayni nin wax bartiyo cilmi nafsiga ku takhasusay markaas kelmad wuxuu isticmaalay ibn aadamka wuxuu leeyahay meescareet wax yiraahdaan sida miisaan wax uu ku miisaamo kale marka hadii qof uu ku dhasho dhul aan buuro lahayn dhul sida magaaladeeda kale Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya badankeeda dhul balaaran oo fidsan marka buraha waaweyn hab dhaqankooda iyo waqtiyada ay u baahan yihiin inay soo dagaan waqtiyada meeqay saacadood ay u baahan yihiin adiga ma haysatid marka mitaalkaas oo kale hadii aan ka soo qabto marka waxaan dareemay habka wacyi gelinta inay ka fog tahay fahamka anaga aan leenahay oo kale waxa lagu la dhaqmayay sida dad European oo kale anaga Europe kama imaan marka qofka meesha uu ka yimid iyo dhaqanka iyo diinta iyo afka uu ku hadlayo ayaa waxa saameyn ku leh miya saameyn ku leh la qabsiga bulshada uu u dhaxmaanaya iyo sida fariinta loo siinayo aniga waxaan ka hadlayaa kaliya fariinta okay wacyi gelinta iyo fariinta sida loo gaarsiin lahaa qofka waa inaad fahamtaa yaad la hadlaysaa adiga بالمثل برنامج هذا أن تعبان دونه برنامج كوسابسن رير كوكله أنا مرة أنخري أن كشخي بدن كيسة إن كستو هب سومالي دور وين إكله ده هي أتكله مركان أركي هب دخن ك إسبتال هذا أما دولة قبلات سويسرلاند أي هب كفيلم كجاه هذا واحد خور بدنا ده سويسا أما ده يوروبيان وما يشل ده حتى ده كإسبانيش كإبرتغيز ك وكفك هي هب كاس أخرين ay rabaan dadka inay u wacyi geliyaan marka sidee macquul u noqonaysa East African Somali Eritrea ama Ethiopian inuu fahmo habka sida wax loo qoray waxyaabahaas keenay inaan ku fikiro inaan urur khaas ah aan suubiyo urur soo bisay oo marka xagaas markaan soo gaarno ururka waxaad u bixiseen help Somali naam ma ahan help Soomaaliya ma ahan help Soomaalida oo guud ahaan marka qofka Soomaaliga ama shakhsiga ayaad ururka help Somali ururka iyo ahdaaftiisa iyo ujeedooyinka loo aasaasay iyo magacaas caawi Soomaali hal qof oo Soomaali ah wax nooga taab okay marka hore aasaasidda ururka waxa ay ugu kalafay waxay leeyihiin goobo oo dadka ay yiraahdaan waad imaan kartaa waxyaabo yara laga caawinaya maaragtay Switzerland magaalooyinka waaweyn way leeyihiin waxa laga caawinaya dadka hadii waraaqyo guriga u soo dhacday qof 3 bil 4 bilood xataa sanad joogo warqad ka timid maaragtay dawlad weyn ma fahmi karo
dadka wadanka ku cusub ha goobo waxaa jiro marka la tago ay dadka ay weydiiyaan marka goobahaasa waxaan arkay badanaa markay arinta kulushahay turjubaan ahaan ay soo wici jireen marka waxaan fiiriyey luqadaha ay dadkaas ay ku heli karaan wax la yiraahdo maaragtay wacyigelin ama macluumaadkii ama wixii in la fahamsiiyo goobo badan markaan fiiriyey waxaan ka waayay luqada Soomaaliya inay ku jirto marka waxaas ka yimid arintii fikradii ahayd in loo baahan yahay macluumaadka projectooyinka ama mashaariicda loo soo bandhigayo dadka Soomaaliyeed inay u baahan tahay dhaqankeena in wax laga fahmay sidii wax loo soo gaarsiinayo iyo goobihii dadka lagu kaalmeynayo ka maqan afka Soomaaliga marka xarumahaas dadka lagu caawinayo cusub kuma jirin yani qaarkood barnaamijyada iyo wacyigelinta iyo warbixinada macluumaadka ay dadka siinayaan dad Soomaali ahna uma shaqeynaynin af Soomaalina wax kuma bixinaynin miya waxaan u maleynayaa gobolada badankooda ma laha qof Soomaali iyaga saas ugu shaqeeyo wadanka Switzerland marka baahidaas aad aragtay aan arkay markaas waxaan ku fikirnay haddii aan organization aan suubino oo arrimahan dabooli karo qaarkood طبعا كل ما ندبولي كرنو مركز عن خرشي سنة إن نصوبنا organization وشخيو خيب إسكاو خبسي جماعة والبو سبعي هراء ستيدي بركة أما لبس عبر سوح نمو لحجة ده إلا يو شنسع يبر سوح نمو inaan dadka u furno waxyaabaha yar aan kaga caawino taasoo iska wax qoobsi ah marka hore qol baan raadinay hay'ad baa marka alxamdulillah qol nasiisoon lacag aan ka bixinayno maadaama anaga hay'ad kale idinku tabarucday inaad xafiis ka hesheen naam marka hooshii sidaan ku bilawnay waxaan marka suubinay website aan dadka dhehayno waxaad ka caawin karnaa asset co-worker camal inaad la shaqeyno mashaariicda aad wadataan haddii ahaato tuujoornimada haddii ahaato facilityga sida dadka macluumaadka loo gaarsiiyo wax soo kale hay'adihii kale iyo ururada mashaariicda haystay Swiss-ka ahaa ayaa okay wada shaqeynaa la sameysay ha ahaato gobolkayga ama gobolada kale kuwii hore aan la shaqeyn jiray ama kuwa cusubba marka waxay bilaabatay dhowr sano kadib inay ku qancaan habka u shaqeynayna inay wanaagsan tahay 2010 ayaan hay'adda Help Somali aan aasaasnay 2012 magaalada waxayna siisay shahaado sharaf oo nagu amaanayso hoosh iska qabsiga fikirka aan la nimid waana xafiiska ugu horeeyay dad Afrikaan ah ay iyaga suubsadaan gobolka aan deganaa waa jiraan ururo Afrikaan isugu tagay oo ururo kale oo Swiss ah hoos tago ama kharash ku qaato barnaamijka ay suubinayaan kuwaas oo xafiisyeer helay laakiin urur iska qabsi xafiis ku bilaabay Soomaaliya ugu horeyso waa keena waqtiga haddaan u soo noqono la aasaasay ilaa maanta maxaad ka qabateen Switzerland oo idiin hirgalay maxaad dibadda Soomaaliya iyo meelo kale wax ma geyseen wax ma idiin hirgalay dibadda maxaad kalood wadan mashaariic ah naam mashruucan sidiisa waqtiga la aasaasay 2010 maadaama aan aasaasnay isla 2010 ba xafiiska yaraan furnay official ah okay طبعا hal laba sano saddex sano ka horna si Soomaalnima gurigeena dhaxis ku shaqeynayeen dadka qaarkood gurigeena oo imaanay marka waxaan jeclaysanay inaan xafiis helno oo nolosha khaaska guriga reerka iyo arrimahan inaan kala saaro guriga dadku ku caawin jirteen marka hore saddex sano wax ku dhaw saddex sano bilaash mutatawacnimo ha okay laba tobanka xafiiska helnay si official ah u noqonay maadaama waraaqaha inaan soo dhameysano oo hay'adan ay tiraahdo hay'ad kale waay Soomaaliya ma ahan qof personal oo kaligiisa socdo marka 2010 mashruucan aan bilawnay oo dadka ku caawinay subaxii hore asagaaba weyn waxa ku xigo mashaariic kale oo hay'adaha yar ee soo siiyeen kadibna barnaamij yaraan qaatiyo oo wacyigelinta aabayaasha wayna ogolaadeen 2 sano kale gobolka aabayaasha wacyigelinaysa Soomaali afka Soomaali ku hadla Soomaali maxaa laga wacyigelinaya waxyaabo badan ha ahaato dhanka iskuulka ha ahaato dhibaatooyinka carruurta ku imaan karto arrimahaas oo kale badanaa waagaas iskuulada dhib ku qabnay anaga maadaama systemka aad u kala duwan yihiin Soomaaliya iyo Swiss naam arrimahaas oo kale ka wacyigelin karnay xog aruursina waa ahayd aabayaasha naftirkooda
ayagaaba badankooda dad macluumaad haya laisma ogo dadkii macluumaadka badankooda baahidii iyo xogtii aad u baahnaydeenna waad waan arkaynaa macnaha iyagan wadaagayn ulajeedka waxa ahaa dadka inay iyaga wadaagaan nin walba wuxuu aragtidiisa iyo aqoontiisa iyo macluumaadkii uu hayay inuu soo bandhigo taasay ahayd barnaamijkaasaad marka sidoo kale fulisay kaasaan waday localkaad ka fulisay localka kamid ah waxaa kala kamid ah familka taa hore kuu sheegay family planning qorsheynta arrimaha qoyska oo isbitaalka weyn mar inugu casuumiyo yiri aniga iyo dad badan oo turjumaan ah habkay rabaan dadka siday wax u gaarsiiyaan fikradeeda hordhigay oo aniga aan kamid ahaa dadka yiri iyo hay-adda markaas mise waa shakhsi ahaan turjumaan ahaan lee wacay markaas iyo turjumaano badan marka waxaan u sheegay inaan hay-ad leenahay fikradda noocan aan qabno in laga haboon yahay habkay u qoreen uu yahay hab qofka Swiiska iyo Jarmalka fahmi karo oo dadkeena dad badan jooga Afghanistan, Iran, Hindiya joogtay waxa joogan dad West African kulli badankooda waxay yiraahdeen way inuu adagtahay dadkeena inaan arinta gaarsiino laakiin aniga sanooyinka kadib projectigan suubiyay dibad u sameeyay 2 sano ana hay'adena suubisay isagoo dadka ajaanibta ku haboon mise Soomaali kaliya marka hay'adena suubisay 2 sano kala aan suubinay sanad ban arintan wadin howlo kala inagu badnaa haddana hay'ad kale oo ilaa iyo dhanka federaalka heer federaal ay gaartay wasaaradda caafimaadka waa salwad faaneen laakiin duruufyo badan iyo shaqooyin badan aan haynay sanad iyo bar kaliyan wadnay iyadana waan joojinay waxa kala jiro barnaamij kale oo anaga aan soo saarnay oo gudaha nafirkiisa ah oo hadirtan aan ku shaqeeyay sida coaching tababar dhalinyarta la siinayo iyo qoysaska maaragtay xogaa cariiri integration ka hayo ama dib ay kala hayso iyaga iyo dawladda مثلا markii loo baxo in caruur reerka laga qaado kale waxaan tijaabinaa inaan dhaxgalno aan iraahno maaragtay hadii macquul tahay coaching in loo suubiyo dawladda iyo hay'adii dawladda arrimaha bulshada u qaabilsaneed iyo qoyska ilmaha laga qaatay ayaa dhaxgashin inaan dhaxgalno okay maxaad markaa tiri sameeyay waxaan raadinaa inaan akhrino marka hore dhibka ka sheeg dhibka jiro ama dhanka hay'adda waxay sheegay dhibka qoyska dhexdiisa ka dhex taagan qoyska lagu haysto dhibka lagu haysto iyaga qoyska lagu haysto ee loo soo jeediyo qoyska ilmaha looga qaatay aad iyo aad ama la rabo in laga qaato ama waxaan raadinaa marka horeba intaan la qaadin ka hor inaan nimaano markaas way sahlantahay way ka sahlantahay arintaas haddaan dul istaagno culays dhibaato xoog leh ayaa ka jirta arintaas iyo kala qaybsanaan aragtida qoysaska ilmaha laga qaato iyo nidaamyadan Yurubta aan nimid sababaha ilmaha lagu qaato maxaad marka u diyaarsan waxaad tiri tababaraan u sameynaa arrimaha qoyska marka maxaa arintaas wax ma ka qabateen iyadoo la taaban karo tusaale ma nasiin kartaa waxyaabaha aan ka qabanay waxa kamid ah markaan akhrino marka hore feelkooda taban wixii dhan lagu ma sheegay Soomaa eedeynta kaliya ku sheegayaan iyaga dadka ay ku eedeynayaan hay'adii markaas ka mas'uulka ahayd ama socialka ama ha ahadan kuwa caruurta ku saabsan wax yar ay ku tusanayaan mar walbo maadaama adiga qof Soomaali ku hadlaya tahay badana waa inay si fiican ku bartaan oo ay fiiriyaan qofkan inay ogaadaan wax isleeyihiin ama reer dhexdhexaad tahay oo adiga bulshada u shaqeynaysa laakiin anaga mid xeebna waxaan ka nirahnaa dhexaad ma noqon karno maadaama aan rabno reerka inaan soo qaadno waxyaabaha ma aragtay dhaqanka kala duwan matalan waalidkii oo caruurta garaacayo kale inuu khalad hal mar dhacay yahay ama qofkan inuu waxba ku ogeyn anaanta xageeda oo kale ma aragtay marka waqti loo baahan qofkii in laga dhacsiyo waxaan inuu oo dhibka ka imaan karo nidaamka tarbiyada wadankeena iyo inta ay u kala duwan yihiin nidaamka wax loo tarbiyeeyo waka marka maadaama ninkan aad fikrad aad siinayso natural ma noqon karto Soomaa waa qofkan inaad dhisto waay Soomaa marka hore laakiin inaad caawiso natural waxa ka noqon kartaa kaliya informationka kala hadlaan ku yiraahdaan arintan waa inay qolkan ku ekaato kale okay laakiin markaas qofka qoyska Soomaaliyeed ilmaha waxaan u fahmay khatar in laga qaato ku socdo intaan wali la qaadan inay fursada ugu fiican aad haystaan qoyskaad marka tababaraysiin
waxyaalaha oo kale- haddii waxaan tababaraynaa markaan hubsano inay wixii ay ku eedeynayaan inay sax tahay oo qoyskana uu khirto Okay, marka adinkana ma baaritaan aad maya samaynaysiin oo madax bannaan qoyskan kale? weydiinaynaa Okay, qoyskan laakiin- weydiina waxaan idinku eedeynaya sidee u aragtaan fadhiyaa jiro oo dhacayo labada dhinac laakiin labada dhinac is haya sidee ku kala fadhiya dhacaya cadaynaysiin maya ma waad ka caddayn kartid qaybgelaysiin ma caddayn kartid ma caddayn kartid ma caddayn kartid hay-adaha dawliga inta badan cadaymay keensadaan ayaga caddayn keensanaya laakiin caddayntiya marka waxaan marmar fiirinaa wax cadaa jiro oo familka xataa dhahay dhibkan waa jiraa marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa cunug inuu aad u fudud yahay cunug inuu dagaal badan yahay reerka waqti u baahan yihiin laakiin waxaa dhici karta marmarka qaarkooda qof macalin oo kale oo reerka iska cunsuriyeynayo inuu Okay. wuxuu culays ku saaro okay waa taasna inaad dhinac u fiiriso laakiin hay-adan caruurta marka waxaa laga yaabaa ajandihii macalinka wixii oo soo qoray Inay qaataan. ha wixii oo dhan completely inay qaataan oo dhanka reerkiina oo leesiriyaad maadaama ay qaxooti yihiin luqada ay ka siin dhan barbaarish camal in loo arko oo iyo dheg fiican loo marka dhigin qoyska taageeraysin waa ka shaqaysin hawsha markaas waa taageerayna khasab waa markaas waa arrintaas si mar kalaan si gaara uga hadli doonaa ururadiian kusoo noqonaynaa waa arrin daawadayaal waxaan wada ognahay arrintaas inay tahay arrin aad iyo aad dhibaatooyinka ugu badan ee qoysaska soomaaliyeed ay ka cawdaan marka la joogo qurbaha weli guud ahaan yurubta horumartay ayaa ka mid ah arrimaha qoyska iyo caruurta la qaadanayo yaxya iyo hay-adiisa iyo wixii ay ka qabato iyo wixii aan ka baran karnabo ama ay ururada kale iyo jaaliyadaha ee ka dhisan yurub ay ka baran karaan mar kale ayaan barnaamij kale oo gaar ah uga warami doonaa hadda waxaan kusii soconaynaa arrinta ururada iyo waxa ay qabtaan marka arrintaas si mar kale aan faahfaahin doonaa yaxi Insha Allah. barnaamijkaasna qoysaskana waad kabtaan waa caawisaan oo caruurta laga qaato dhanka Marka, Soomaaliya waxay dibadda weydiisay. aan wax yar ka taaban Soomaaliya wax ma ka qabateen naam oo la taaban karo ma jira aad ka qabateen aad Ka iyo fuliseen. aad iyo aad dhaqdhaqaaqeena ugu horeeya wuxuu ahaa 2011 iyo 12 abaarihii dhacay waa sanad kadib sanad iyo bar markii la eegay, laba sano gudaheed ha si nasiib wanaag qof aan marka la shaqeeyay hay'ad kale aan wax ka caawiyey hay-ad kaloo Soomaali ah may hay'ad kale oo Swiss Swiss ah, ah okay. yaa isoo bacday waxay tiri maaragtay wadankaaga aad u burbursan yahay maad xamlad lacag aruurin samayso ayaga kula soo xidhiidhay ha marka fikirka aadan wala dhacay marka waxaan bilaabnay inaan wax aruurino wixii baan qaadnay si tabarucan u soo banay laakiin waxaan dareemnay inay tahay gargaarsiin degdeg ah oo degdeg ah. raashin ah xageed gaarsiiseen magaalada muqdisho qaxootigii kusoo qaxay kusoo qaxaya banaankeeda laakiin waxaan aragnay isla markii inayna ahayn si professional inaan u dhicin okay waxay u dhacday si oo maaragtay bilaaw oo kale ah oo ku shaqo barateen oo ku shaqo barateen nacam marka waxaan la xiriiray hay'ad ay yiraahdaan African DT oo Ingiriis ku taalo hay-ad weyn oo macruuf ah ha aad iyo aad marka nin walaalaha telefoonkiga qabtiyo Kamaal la yiraahdaa yarkaas oo ka mid yahay hay'adaas African DT meesha ku wada sheekaysanay marka si fiican aan isu tusnay waxyaabaha loo baahan yahay isla markiiba casuumaad iyo nagu soo biyeen Ingiriiska iyagan tababaro ka qaatay Ingiriiska dhexdiisa haddana Soomaaliya waxaan siday Soomaaliya uga shaqeeyaan baahiya okay naam 2015 marka Soomaaliya tagay waa markii ugu horeysay dagaalada kadib iyagana igu soo dhabeeyay habka shaqadana ma aragtay iyagan ka arkay qaybta Soomaaliya sida u shaqeyso midna habka Yurub ay kaga shaqeeyaan midna waxay habka Soomaaliya kaga shaqeeyaan maadaama si daacad ah oo nadiif ah wax walba ii kala tuseen yaa waxaan qorsheysanay anaga inaan xafiis cusub Soomaaliya aan ka raadsanin aan noqono laba eeyad isla shaqeeyo iskaashanayo wada shaqeynaysan naam arrimaha dib u dhiska Soomaaliya maxaad ka qabateen marka Soomaaliya oo hay'addu waxbaad kala barateen waad isbarateen xog baad isdhaafsateen laakiin maxaad taladii aad hesheen iyo wixii wax la taaban kara maxaad ka qabateen Soomaaliya oo mid iyo laba nooga xus mida waxaa horeyso waxaa fiican hataa waxyaabaha ku baratay inaan sheegto barnaamij aan rabay jowhar inaan ka qabano 2015 aan tagay barnaamijkan fiiriyey asagana waxyaabo badan aan ku baranay laakiin waa suurgari waayay barnaamijkaasi maxaa rabtay in jowhar ka qabato waxaan rabnay guri yara oo agoonta inaan sameeyo guri agoonta lagu daryeelaha oo macal waxbarashadooda mashruuci waa socon waaye maxaa hor istaagay haddaad la wadaagay habdhaqanka dowladda Switzerland ay lacagta ku bixiso
yaanan ku jirin arrimahaas oo kale iyo sida Soomaaliya mashaariicda maya Soomaaliya oo kale maahe mise Swiss-ki ayaan ogolaanin ayaga ma ogolaanin barnaamijku aad u weynaa ka hay'adahan oo kalena aadan u yareen zoonkan waxaa risiko ahaa risiko zone ahaa waxyaabahaas oo dhan anaga maanan arkin anaga waxaan arkaynay dhibka caruurta haysa kaliya marka kaas waxaan ka soo baranay 2017 abaarihi aydan 16 kan jeclahay abaarahaas yaa nin Swiss-aan saaxiibanahay oo meer podium mar aan fadhiyo asaga hogaaminaya arintaas iyo interview iga qaaday kaas meel aad ka wada tirsanaydeen may waa meel gole may kala fadhi oo maaragtay arrimo lagaga doodayo arrimaha qaxootiga oo asagana maadaama journalist oo ahaa maaragtay qofkii tabinaya arintaas kadibna interview iga qaadeen saaxiibo noqonay telefoonada aan kala qaaday waa wariyay Swiss ya 2017 soo wacay oo yiri maaragtay abaarahan socdo iyo sida warbaahinta u soo gudbinayso asagana dowlado arkay oo leeyahay dadka Swiss-ka iyo Jarmalka ku hadlabo waxa habooneed meelo qaarkooda xog aan sax ahayn ama xog dhameystirno ama gobollo kaliya la tagay ayaa la tagay meelo aan la tagin rabay marka wili wuxuu yiri meesha dhibka badana xoogan ka soo baxda waxa koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Beedhawo iyo maxallo tago waa yiri marka waxay reeniyay ma khana waa aniga arintaas waa ka xumahay ma caawin kartaa weeri waxay anigu hal mar aan tagay wadanka saa ugu soo baxay arimaana soo wareys marka ninaan saaxiibanahay oo aad soo fiicnaa Zuur degan Bashiir Nafaqay dhahan yaan inta kala kaashaday isla markii wuxuu yiri waa sameyn karnaa yaxay ana garab ka siinayo arin fiican mar kale ku noqotay Soomaaliya waa ku laqonay inta sii bixinay yaa isoo wacay telefishinka qaranka Soomaaliya Switzerland qaybteeda Jarmalka kuwa waxay yiraahdeen arrimahaas aan rabnaa inaan interview kaaga qaadno iyagu website-geena soo arkeen Soomaaliya habka uu shaqeynayno markaas waxay yiraahdeen interview markaas xayri maalin hebel maalintaas waxay Soomaaliya ku socda kaba si fiican yiraahdeen markay soo wacay waa maalin Jimcaha oo waxaan jeclahay 9 saac iyo 10 saac oo kale galabtii anigana axadii aan u maleynahay inaan baxay marka waxay yiraahdeen Isniintii ma akhana marka Sabtiga ama Axadiba waxay yiraahdeen maadaama aad baxaysid interview ma sameynayna adiga reerkaaga midna la sameyn karnaa barnaamij yar oo dadka ay kala hadleeno inaad tihiin reer isku dhex jiro Swiss iyo Soomaali ah adigana wadankaas ka timaada dhibka oo ka jiro waxay wadankayga way waran tahay marka waxaan ogeynaa yani waxa arinta lagu muujinayay muslina oo Swiss Soomaali ka kooban oo haddana ka labadaba qoyskii u shaqeynaya say isugu xiri lahaayeen labadii dal sax marka waxaan iri waa ka soo fikray maadaama nin journalist la socday waxaan diidayay maadaama ninkan uu yiraahdo wadankaaga ku raacaya inay su'aalo u weydiiyaan oo ninkaasna ma aragtay wixii uu baxayo dhan inaan sii sheego marka wuu ka gaabsatay may aad uu farxay wuxuu yiri may iyagana ku soo darsamaan hambalaarin arinta raaliyo ka noqday iyagoo la hadlay barnaamijyadu asaga oo raba inuu wax ka qoro inay u dhaafaan arimaha ay rabeen waaba ka fogtahay waxyaabaha asaga ka horeeyay asaga ka horeeyay asaga wuxuu rabay wixii meesha ay ka soo bilaabatay inuu arko dhibka marka iyagana waxay ahayd faahfaahin caam ah inay suubiyaan iyo marka sidiyaan asaga u raacay telefishinka xaafadena yimaadeen interview yar ay ku suubiyeen markaan Soomaaliya joogay xamar tagay Beedhawo sii gudubnay Beedhawo markaasna iyagana live via messenger nama adiga live inagu la socdo live kuugu wareystay adoo Beedhawo joogo iyo Soomaaliya Muqdisho ka degteen Beedhawo tagteen xog ururin iyo marka intaas miya barnaamijka uu ku ekaa mise wax la taaban karo ayaa idin kaga hirgalay maxaa la taaban karaa samayseen iyo abaarahaasi sideed uga qayb qaadateen marka hore markaan sii soconay xogaa dhaqaale aruurinaan soo baniyo dadkaan naqaana iyo xaaskayga asxaabteeda kale ama ehelkeeda iyo dad Soomaaliba iyadana qaybta dadka Swiss-ka ay dhex gashay aad iyo khaali Swiss aan aqoon u leeyahay iyaga naftirkooda adigana sidina waxaan aruurinay markaan tagnay Beedhawo waxaan soo banay xogaa raashin qaybis ah biyo biilaana jirto waagaas booyadaan u qodnay oo waagaas biyo ugu soo keenay dadka
taasaan soo qaba booyadaad ijaarteen mise waa gadeen may waan ijaarnay okay. marka dadka markii biyihii meesha loogu wada qaybiyey oo biyo dhaaminaa samayseen biyo dhaaminaan suubinahaa iyo raashin qaybis okay. kadibna markaan Swiss-ka taas adinkaa si gaar ah help ururka help Soomaaliya ayaa si gaar ah isu xilqaaday markaan soo laabanay intaasna xaaskayga waxay kala shaqeynaysay hay'adda lacagta aruurinayso caanka ah wadanka laga yaqaano xiriir ku lahaysay in arinta Soomaaliya dhankeedana maaragtay sida ahaataba meesha la marsiiyaba inay Soomaaliya qaybteeda budgetka qayb Soomaaliya inay wax ka hesho lacagihii loo aruurinayo aan wax lagu aruursan marka hore waxay yiraahdeen idinka la shaqeynayna xogaa kadib waxay yiraahdeen hay'ado kale oo weyn anaga ah idinkaas la shaqeynaya kadibna waxay yiraahdeen may hay'adaheena shaqeynayo marka toos hay'adihii waaweynaaye Swiss-ka ku wareejiyeen naam iyaga ku wareejiyeen marka sida wax loo gaarsiiyo Allahu aalam taas wax kama sheegi karno ma intaas ku joojiseen marka mise waxba ka qabateen oo anaga faa'iido waxa inoo timid oo ah ninka journalist-ka la socdiya wixii ilaan asaga uu dhex joogay wuxuu soo qoray qoraal dheer oo jaraa'id ka soo baxo caasimadda goolo badan aaday iyo soo saaray oo kaga hadlayo oo hay'adena saaran magaceega sawiradeeda saaran taas aad ilaahay inagu furay dad badan oo jecel inay dadka caawiyaan oo Swiss ah yaa bilaabay lacag badan inay soo shubaan lacagahaas marka waxa qaarana dadka markaas si degdeg ah caawinad ugu geenaynay kadibna waxaan fikradeena u bedelnay maadaama meeshii dhibaatada ay biyo tahay lacagahan imaanaya mashruuc biyo ku dhaamisiin mise ha African diyan kala sheekaysanay waxay yiraahdeen arrin fiican waaye ceelkii koowaad waxaan ka suubinay Baydhabo ceel aad u weyn oo maaragtay solar system ah haddana mid kale alxamdulillah waxaan bishan la soo dhaafay ku soo gabagabeynay warshiikh kii saddexaad marka waqtiga aan bilaaban doonaa insha Allah ceelkii saddexaad aad maraysid naam ha ama Baydhabo markii kuugu horeysay ma yahay tagaysay mise horaad Baydhabo u joogi jirtay Baydhabo sida markaas ay ugu horeysay laakiin waqtigaas xaadirka sida Baydhabo biyaha loogu baahnaa Muqdisho ma loogu baahneen Muqdisho biyo badan ay haysataa hadii loo fiiriyo dhanka Baydhabo weliba xilligaas maadaama aan dadkii aan sheegnay dhibka meesha oo ka jiro waxaan aaminsanahay lacagtii hore soo dhacday in dadka ugu soo talagaleen reer Baydhabo loogu soo talagalay saasaan aaminsanahay kii labaad warshiiqa ka qodan ceelka saddexaad inteed u wadaan والله waxay ku xirantahay African DT anaga meeshaan dhahno duruufyaan fiirina assessment la suubiya kadib meesha aan u khadnaa iyadoo aan fiirinaynin meeshaan aan ka soo jeedo Muqdisho muhiim ah joora magaaladeeda labaad iyadoo nafskeeda xataa ka kabaan furum maadaama aad dad Swiss ah oo meelo sarsare nidaamka ka joogana aad ku xirantihiin hay'ad ahaan iyo adiga shakhsi ahaan iyo qoys ahaanba Soomaaliyana aad xiriir fiican haysid marka ma in arintaas wax in dawladii nidaam gobolada hadda wali soo kobcaya ama u baahan in wax laga caawiyo ma isku dayday inaad isku xirtaan arintaas wax ka qabateen maadaama aniga reer Muqdisho nahay degmada Shibis aan ku dhashay reer Bilaac Carab aan nahay Soomaaliyana reer Muqdisho ka tahay aan ka nahay Switzerland reer Bernard ka tahay marka arrimihii ceelka iyadoo socdo yaan waxaan istusay duqa magaalada Muqdisho Allah u naxariisto injineer Yariso in aan ku soo xiro magaalada Bern duqii hore Allah u naxariisto Allah u naxariisto marka tii waa inoo soo gashiyo waan keenay duqii macaamilo fiicnaa duqa magaalada Muqdisho iyo duqa Bern duqa Bern kaliya maahan heeda waaweyn aan geynay ilaa jaamacadaha aan geynay jaamacadda weyn aan geynay oo magaalada ku taalo in marka gobolka iyo gobolka la isku xiro waxyaabaha kala faa'iideysan kara طبعا anaga faa'iido u baahan xaqiiqada hadii loo hadlo baahida anaga haysano marka xataa waxaan geynay iskuulka farsamada habka dhalinyarada wax loo baro waxyaabo badan istusinay oo rabnay magaalada kaga ay kala shaqeeyaan caasimadeena waayim duqa 3 maalmood inuu la joogay si fiican meelaha loogu soo dhabeeyay duqa magaaladana taban way kulmeen si fiican u sheekeysteen Allah u naxariisto markuu noqday mashruuc waxa anaga u tagno amar kala meesha ka sii wadin Soomaaliya meesha hoosheen aan ka wadno xiriirka si loo sii xoojiyo waa tii asaga oo dhintay marka uu dhintay gobolka waxyaabo badan oo ku mashquulsan ma aqaan sida u shaqeeyaan faylalka ma la isku dhiibaa ma la fiiriyaa faylalshii hore laga soo shaqeeyay hawshan la sii wada ma loo baahan yahay dadka ma loo la xiriiraa si u shaqeeyaan ana ma ka sikari
macnaha isbedel hadduu yimaado ama geeriha ku yimaado ama hala bedelo hogaankii markaas joogay wixii ma sii soconayaan maxay tahay anas experience aan suubiyay barnaamijkan kaliya magaalada kala shaqeynayay marka waxaan arkay in la soo ogeyn markuu ilaahay u naxariistay engineer Yariso dhintay hawshii ma sii socoto xaggaasi ka fadhida xiriirkii waa fadhiistay xiriirku waa fadhiistay waxbadan kuma sii daahayno ururada waxaad noo soo koobtaa noocyada ururada ee Switzerland ay leedahay inaad noogu soo gunaanido kuwa Swiss-ka Soomaa Switzerland wadanka Switzerland noocyada ururada iyo sida ururada loo samaysto ururada Swiss-ka horta way kala duwan yihiin Abdulfataax midna waa kuwana waxa suubsada dad oo ururka sidiisa farayna dhan afka Jarmalka gobolada kale Faransiiska Talyaaniga ma aqaan xaqiiqdii marka club oo kale waa association oo kale waa ururadan waa weyn oo kale مثلا naadigan hadartan magaalada ka dhisan Young Boys kaasoo ah kii ka badiyay maxay dhahan Manchester waqti dhow macal Ronaldo la socday marka ururkaas farayn ahaan uu dhismay balooniga amaano iga helaa ururkaas laakiin wuxuu dhismay laakiin asxaabta ku taxan warbaahinta deegaan codka geeska ururka naadiga magaciis Young Boys naadiga la yiraahdo ee magaalada Ben ka dhisan waa magaalada marka urur ahaan uu dhismaa Soomaa FIFA kale hay'ad weyn Real Manchester na haraale ahaa hadii laga badiyaa dhexdhexaad okay marka FIFA kale naftirkeeda FIFA waa urur waay FIFA okay ururka caalamiga marka ururka sidiisa maxaa waaye faraanka muxuu yahay faraanka waxa waaye laan khayrta cas xarunteeda ICRC Swiss-ka tawa tii u horeysay marka waxaad arkaysaa maxay yiraahdaan ururka waa sahlan yahay Swiss-ka in la sameeyo ujeedada laga leeyahay wax kala maahan waxa la yiraahdaa hobbiga dadka ay leeyihiin ururka wuxuu noqon karaa saddex qofood oo baashan boojada aan dhahno ama ururka boojada lagu ciyaaro ama ciyaartii ka markino dhahan urur waxaan suubsanaynaa ka horumarinayo shuruuca u dhajinaysa marka ururka lagu sheegay intaas waa fikradii waxa waaye maxaa rabtaa inaad ku qabato hobbigiina xaafadan hadartan aad joogno yaa urur iska suuban karto iyada dhihi karto waxaan rabnaa xaafadeena jidadkan oo dhan inay nadiif ahaadaan xataa dawladda howlashaas oo kale inaan anaga ka qabano marka shuruucda maraysa statutisa qoranaysa xeerkaad qoranaysa mahadsanid iyo xeerkaas ku jiro yaa tihiin xagee waa fadhigiina yaa loola soo xiriiraya dadka madaxda ah saddex qofood oo Swiss ku furan karto marka saas uu shaqeeyaa sahal waa urur nidaamka ururada bulshada ee wadamadan Yurubtan horumartay waxay inta badan ku salaysan yihiin in bulshada ay xor u tahay xaqna u leedahay in ay nooc walba ay rabaan ee noocyada ururada bulshada ay rabto bulshada rayidka ah inay samaysan karto ayna bulshada isku abaabuli karto marka ururka ma ahan kaliya inuu siyaasi ahaado ma ahan inuu ganacsi ahaado ma ahan kaliya inuu ururka ka shaqeeyo samafal waana wadamo badan ayaa nidaamkaasi qaba marka Switzerland wax badan uga madduwana ururkaas hadartan aan ku sheegay مثلا saas u sahlan hadaa rabto waxa suubinaysa waraaqdaas marka diyaariso waxa suubinaysa protocol maadaama kulanka ugu horeeyay inuu dhacsaas oo kale bangiga furanayaan dadka magacay leeyihiin hadii ay rabaan website suubsanayaan ama Facebook uma baahno wax soo dhan marka iskaashatooyinka shaqaalay taa waa urur ahaan waxa dhan ma dadku inay iskaashato ahaadaan haday rabaan waxay ka dhigan karaan waxay u madax banaan yihiin waxay ku xiran tahay waxa ay yiraahdaan mawduuca oo ku saleysan yahay ururkan maxay hadafkaas wuxuu yahay hobbigiina muxuu yahay مثلا dhalinyaro xaafada degan waxay leedahay Soomaali ah waxaan rabnaa urur sport inaan suubsano marka hadafkooda waxa inaan wada kulano baloonigaas asla ciyaarno waxaas oo kale kuwa kale waxay leeyihiin urur dhaqameed kaasa marka wuxuu noqdaa jaaliyadii oo kale ama jaaliyad bulsho matasho waa noqonaa urur dhaqameed oo bulshadaas matasho ونخنا هذا كان هل سومالي وكلا جاليد ما أنا جاليد أورس سمفل أور وحنا وحد ليه كرا NGO والله كرا والله كرا NGO لكن مركل لو بعد إسكولة وكلا إيو وحكب هي lectures بريفات عن أما مجا أوركا أما حب دخمات كسومالي دخل كذا أما تاريخ السومالي حوجا كلا هذا أساس وكلا وادع كرتا لكن أورر منه أنا جاليد أهان أودسن ولو سومالي مركي أورر مخلان
فرعين كي مخلان جالية استعمال مرور بجالية استعمالها meel walba saas waaye sababta habka bulshooyinka isku abaabulaan نعم ayaan kala duwanaanshahaasi keenaysa erey bixinta marka jaaliyada waa habka wali la isku abaabulo Soomaalida habkan isku abaabulna hab jaaliyad ah waxa arkaysa warqad waxa ugu qoran ururka dhalinyarada Soomaaliyeed sportiga oo kale kuwa wax iska leeyahay wuxuu leeyahay jaaliyad sportiga miyatan marka maadaama ay tahay kelmadda ay fahmi karaan waa la isaga wadaa saas way walow idib keento marmarka qaarkood qofka uu fahmin hawsha aan qabano oo yiraahdo maadaama jaaliyad aad tihiin maxaa anaga ay noo qabanaysiin xuquuqdaada ku leenahay oo kale marka qofku wuxuu okay marka jaaliyad matalaysa shucuub ayuu u fahmay qofka markuu ku dhahayo maxaad Soomaali ahaan noo qabanaysiin ama ururkiin waa urur sport ama keenoo kale help Soomaali oo kale okay yaxay ugu dambeyntii maxaad nooga tagaysaa oo aad leedahay fariintan sabaabulka ururada bulshada naam iyo aniga iyo daawadayaashaba wallahi waxaan daawadayaasha iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaanbo aan dalab ahaan aan u dhihi lahay fariinteeda haddii magaalada aad degan tahay ay jirto urur aadan ku qanacsaneen ururkaas sida uu shaqeynayo xaqabaad u leedahay inaad urur kala abaabasho laakiin yeena noqonin ururkan waxaan u abaabulayaa in ururkaas aan ku jibiyo kaliya ay noqoto baahida aan qabno ururkaas la daboolo ma dabooli karo ururkaas kala jiro anaga waxaan rabnaa urur baahideena daboolo anagana saaxiibtinimo inoo dhaxayso taas ay ugu muhiimsan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Yaxya Daalib Axmed Al-Cabsi oo waqtigiisa qaaliga ah nasiya anigii daawadayaashaba anna sidoo kale waxaan idin kaga tagayaa yaynan noqonin dhaqdhaqaaqyada ururada bulshada ee la sameeynayo mid lagu baabi'inayo wixii jiray ee ha noqdo mid dhameystirayo waxa dhiman ee la tabayo waa walaalkiin saaxiibkiin Cabdifataax Baana Caymuun oo idin kaga tagayo mar kale iyo barnaamij kale oo ka xiiso badan midba midka ka dambeeya waa inuu ka sii xiiso badnaado. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Alaykum asalaam wa rahmatullahi